Zakariya Xirsi oo ah wiilkii qabay Allah u naxariistay Almas Elman ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray erayo ku qoran luqadda Ingiriiska balse sidan ayaan u tarjumay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maalin Arbaco ah waxaan waayay jacaylkii noloshayda, saaxiibkii iigu wanaagsanaa. Waxaan waayay xaaskayga iyo canug aan weli ii dhalan. 2 sano ka hor waxaad qabatay wejigayga markii aan aqal galnay. Maanta waxaan dhinacaaga dhigay qabriga adigoo meed ah. Qalbigayga wuu jabay, waan ilmayn doonaa mustaqbalka. Waxaan ku faraxsanahay noloshii aan kula soo qaatay iyo xasuusihii hore. Noloshayda waad dhamaystirtay. Waxaan kuu rajaynayaa in jannada meesha ugu sareysa aad gasho. Nolosha aakhiro aan ku midowno insha Allah. Waxaad lahayd asxaab ku jecel balse qalbiyadooda ayaad ku hari doontaa. Geeridu waa cadaalad xumo. Kii sameeyay wuu aayi doonaa. Wanaagii aad ka tagtay ayaa hari doona. Wuxuuna ku soo gabagabeeyay fariintiisa, waan ku jeclahay Almas weligaaga. Fadlan sii faafi isla markaana nagu soo biir oo channelka subscribe saar gambaleelkana furo. Waxaad had iyo jeer naga heli doontaa warbixino noocan oo kala mahadsanidin.